bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal cusub ay dhacdooyinka dunida kuwada ugu yaabka badnaa maantase waxaan idin haynaa maxay tahay sababtoo Hrithik Roshan u soomo 23 saacadood jilaaga caanka ee shirkadda filimada Hindiya ee Bollywoodka Hrithik Roshan ayaa boggiisa baraha bulshada ku sheegay inuu si joogto ah u soomo 23 saacadood oo xiriir ah xilligan oo lagu guda jiro xayiraad uu sababay cudurka coronavirus. Roshan ayaa sababta uu arrintaas adag u sameynayo ku sheegay si uu u ilaaliyo caafimaadkiisa iyo fayo-qabka jirkiisa maadaama uusan jirin wax dhaqdhaqaaq ah oo la ogol yahay in banaanka loo baxo. Atoorahan ayaa bartiisa Instagram-ka iyo bogga uu ku leeyahay Facebook soo dhigay sawirro iyo qoraal isla socda oo ku faahfaahinayo sida xaaladiisa ay marayso. 23 saacadood oo soon ah, caafimaad ku noolaasho, adkaysi, edebtu waxay la mid tahay xornimo ayuu ku soo qoray sawirkiisa. Sawirka waxaa lagu arkay Hrithik oo kaamirada u jibinaya, wuxuu u muuqdaa in timaha madaxiisa iyo garkiisa ay ku sii badanayaan maadaama aan la soo bixi karin inta lagu guda jiro xayiraadda cudurka coronavirus. Hrithik oo kaliya ma aha balse jilayaasha kale ee Hindiya sida Akshay Kumar, Aamir Khan, Saif Ali Khan iyo xitaa filim sameeyaha lagu magacaabo Karan Johar ayaa sawirradooda soo dhigay baraha bulshada iyagoo laga dareemayo in uu si weyn u saameeyay amarka xayiraadda. taageerayaasha Hrithik ayaa mar kale aad ula dhacay sida muuqaalkiisa weli u wanaagsan yahay. Hrithik wuxuu xayiraadda kula jiraa labadiisa wiil ee kala ah Hayram iyo Hirdaan iyo sidoo kale xaaskiisii hore Susana Khan. Wuxuu dhawaan ka qayb qaatay gurmadka dhaqaalaha loogu aroorinayo howlaha caafimaad ee badqabka ay wadaan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira la dagaalanka cudurka COVID-19 gaar ahaan ciidamada booliiska ee magaalada Mumbai. Filim soo saaraha reer Hindiya Hrithik Roshan ayaa si faahfaahsan ugu sheekayay dhacdo ku saabsan maalintii uu wiilkiisa Hrithik qol isku soo xiray isagoo oynaya kadib markii uu soo baxay filimkiisii ugu horeeyay ee Kaho Naha Pyar Hai sanadkii 2000 ayuu Hrithik markii ugu horeysay ka soo muuqday filimkii uu aabihiisu sameeyay oo sidoo kale ayaa tiriisho ka ahayd Amisha Baital. waraysi oo mar Roshan siiyay warbaahinta The Queen ayuu dib ugu soo xusuustay dhacdadaasi isagoo sheegay in wiilkiisa uu guriga yimid isagoo ka fikiraya sida ay noqotay natiijada tijaabadii ku saabsaneed inuu ku habboon yahay jelista filimada in kale. wuxuu Roshan yiri waan xasuustaa dhacdadan waxay ahayd 3 ama 4 bilood kadib markii uu soo baxay filimka. Hrithik qolkiisa ayuu ku dhex oynayay wuxuuna dhahayay aniga arrintan ma xamili karo, ma shaqayn karo, ma aadi karo stuudiyaha. waxaa jira basas gabdho iyo wiilal ka buuxaan oo doonaya inay ila kulmaan, ma heli doono fursad aan wax ku barto ama wax ku jiro ama aan diradda ku soo saaro shaqadayda. qof walba wuxuu doonayaa inuu ila kulmo. markaas kadib ayaan aniga ku dhahay ka soo qaad in xaaladdan aysan weligeed ku qabsanaynin, maxaa dhici lahaa markaasi? isku day inaad la qabsatin shaqadaadana wado, ha u qaadanin dhibaato. wuuna i fahmay. markii uu soo baxay filimkaasi Rakesh oo ah Hrithik aabihiisa wuxuu ku guuleystay abaalmarintiisii ugu horeysay ee abadi uu ku helo soo saarista filimada iyo hagistooda, halka Hrithik uu ku guuleystay abaalmarintii ugu horeysay ee atoorayaasha ugu wanaagsan sanadka iyo atoorihii ugu fiicnaa ee isagoo bilow ah shaqadiisa sidaas u wacnaatay. Hrithik wuxuu sii watay xirfadiisa jilista oo uu guulo badan ka soo hooyay 20 sano ee ugu dambeysay. warbixintaasi waxay ahayd oo aan kaga hadlaynay maxay tahay sababta uu Hrithik Roshan u soomo 23 saacadood.
fadlan haddaad ka heshay warbixintan subscribe like share comment saaxiibadaadan la wadaag mahadsanidin dhammaantiinba saaxiibayaal